بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام داوديال وانا كابتن عباس halkan waa isla Captain Cabis. waxaynu dul istaagi doonaa dhowr qodob oo ah shirkii madasha wada tashiga qaran ee ka socday Muqdisho wayna ogaan shalay halkii ay wax marayeen. shirkii fashil iyo horta iyo cagaha u saaran yahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa wuxuu ku adkaystay laba qodob. labada qodob ee shalay aan soo tabinay halkan idin ku soo gudbinay labada qodob oo haddii doorasho laga hadlayo nooc ay doonib ha ahaatee inay madasha fadhiyaan Puntland iyo SSC Khaatumo. Puntland iyo SSC Khaatumo waa inay madasha fadhiyaan. taas wuu ku adkaystay. cid kasta u tagtay waa la marisiin waayay. waxa kale oo uu ku adkaystay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam in muddo kororsi wax dhahay uusan jirin. wax muddo kororsi oo la dhaho inuusan jirin ayuu ku adkaystay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam. waxaa la filayaa saacadaha soo socda inay warmartiyeed soo saaraan maamulada kale ah Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Lafta Gareen, Galmudug, Axmed Cabdikaariyo Qorqor, Cali Guudlaawe, Hirshabeelle inay qolaba dhinaceeda ay warmartiyeed soo saarto yaa la filayaa. doorashadii tan ka horreysay ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku soo baxay xilligeedii oo kale madaxda maamulada oo ay ka maqan yihiin Puntland iyo Jubbaland ayaa waxay soo saareen warmartiyeedyo. Puntland iyo Jubbaland baa ka maqnaa. hase yeeshee taas wax inaba ha yaraatee ka hirgalay ma jirin. Puntland iyo Jubbaland toodii ayaa hirgashay, toodii bay noqotay xilligaas iyada ah ee doorashadii 2021. hadda maamuladii ahayd lixda ahaa markii gobolka banaadir lagu daro waa 6. Jubbaland halkaasi ka istaagtay. Puntland awalba way maqnayd, SSC Khaatumo way maqanta. saddexdii kale yaa waxay soo saarayaan warmartiyeedyo ay kaga hadlayaan arrimaha sida aanu xogta ku helay saacadaha soo socday soo saari doonaan. hadda ugu dambeysay waxaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ku maqnaa in arrinkaas ay kala hadlaan isagoo ra'iisul wasaarihii Axmed Cabdi Barre iyo dhammaan maamulada ay isugu tageen oo laga dhaadhicin waayay in doorashada mataqaanaa arrinkeeda aan laga hadli karin. Puntland oo maqan iyo SSC Khaatumo oo maqan iyo in doorasho wax muddo kororsi la yiraahdo aan meesha iska dhici karin. haddaba waxay qorsheynaysaa filla Soomaaliya waxay isugu jeeday dhammaan mucaaradkii dhammaan wax alla wixii sayid Axmed Maxamed Islaam ka soo horjeeday isugu yeedhay filla Soomaaliya Muqdisho ay ku wada casuuntay iyagoo raba inay qiiq ku kiciyaan madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ku saabsan doorashooyinka iyo arrimaha. dhammaantood waxay isugu yeedhay meesha la yiraahdo Muqdisho. waad ka arki doontaan maalmaha soo socda Muqdisho iyagoo isugu taga mucaaradka ka soo horjeeda madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo dhan dhammaantood. hase yeeshee ilama aha inay wax ka qaadayaan Axmed Maxamed Islaam inay wax ka qaadayaan ilama aha. dhammaan ummaduna meel kasta oo joogaan nimankan fadlan ku soo wada mooyaane dhammaantood waxay ummadii wada taageertay mowqifka madaxweyne Axmed Maxamed Islaam. Puntland way soo dhaweystay. madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa soo dhaweeyey mowqifka ay ka istaagtay Jubbaland arrimaha doorashooyinka. marka mucaarad inay wax ka qaadayaan aniga ilama aha sayid Axmed Maxamed Islaam waa uu layslu goynayaa iyadoo tan ka xun tahay. rag tanka xasan sheekh maxamuud iyo filla Soomaaliya kuwa fadhiya ka hargaansan ay fadhiyaan yaan waxba laga qaadi waayey. waxaan kaloo u sheegayaa arkay dad xaganaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. ra'iisul wasaaruhu waa baari, waa wiil baari ah. xasan sheekh maxamuud baari u yahay. ra'iisul wasaaruhu xasan buu baari u yahay. dad xaganayaan arkayo intay soo qaateen doorashadii xilliga Jubbaland uu ka hadlayay. siyaasaddu way kala gedisan tahay, kuwa ma aha wax saaran ma aha. marka wuxuu ahaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland buu ahaa ra'iisul wasaaruhu. haddana waa ra'iisul wasaaraha Barnaamijka Soomaaliya weeye. madaxweynihiisu daacad u yahay oo adeecsan yahay oo la shaqeynayaa oo uusan khilaafsanayn. marka waxaan leeyahay dadayow u badan reer Jubbaland oo waxaan arkaya weliba aad u xaganaya ra'iisul wasaaraha Barnaamijka yaan lagu xadgudbin aan la cayn iyo aflagaadeynin ninkaas shaqadiisu haystaa.
معارضكم هسوت كان حمر عدي wax ka qaadi lahaayeen baa la rabaa tanna waa qorshadeg san oo saxa madaxweyne axmed maxamed islaam in Puntland oo maqan aan doorasho laga hadli karin SSC Khaatuum oo maqan aan doorasho laga hadli karin cidna aysan ka hadli karin mataqaanaa wax doorasho ku saabsan arrimaheeda muddo kororsin iyo xaraan bay November in ay doorashadani dhacayso ayuu ku adkaystay xilliga doorashada maamuladan ay tahay axmed maxamed islaam markii inta laga yimaado maamuladu Puntland iyo Puntland weli SSC Khaatuum lagu daray waa maamulo isku filan horta ma aha dad furaha loo hayo cali gudaha muxuu meesha ku hayaa waa ninka dhanqalanka ee labada meelood qallalan cilcilsalada abaarta fadhiye muxuu hayaa ninka la yiraahdo axmed cabdi kaariyo qorqor waa ninka dhanqalanka ee meesha fadhiye isaguna muxuu hayaa lafta gareen waa ninka al-shabaab qalbi wadada ka xirnaysay gawaadhiisii cuntadiisii risaqay dadka hawada intay ka xirtay ay isku wada jarteen Jubbaland way isku filan tahay Puntland baa isku filan SSC Khaatuum isku filan كنتوا قد يسكون فيلين دبانتود موقف كويس تاين وموقف شرعي من الحوين أحمد محمد السلام دور الشر لقى هذا وحرام ما مولد دلك هو وين أو مكان إن دور الشر لقى هذا حرام وي إن لقى هذا دور الشر سيستم كذي النظام كاستون إن لقى هذا وحرام وحبيا الاستالين سيد كوبركي سنيهي أفرتني 6 ساعة صوص عطاي ساعة صوص عطاي وحان رجينا يا إنه سيد كدب وصلبت مقالة كسمايو تضيو ومعرك يا هذا لك لو نيع بلا معنى وحي كترجمين وحي كان ليان تون إذن جرين صار رجينا لكي ميديا صار رجينا لكي أو سيد كجرافين لكي على شيء كجرة كم ده على شيء كجرة كم ده كم عارك حسوق القري إن هلا حلو ما أسكري بقى يعني مودي مرك الله يحمي سيدك نك الصومالي وصل يوي سياسة مرك له والله بالله تالله مرك سياسة له صومالي نك وصل فرتها كوريتيا والسيد أحمد محمد السلام فرتها نك كوريتيا سياسة الصومالية إحراه إفره وسيدك عد حل كرتها أما وحكب بدلي كرتها أما ما تقانا تيس دبر كرته ما جرتو مركز تنا وحكو تاغيا waa sharciyad waa sax ma waxaan sharci ahayn maanta bilaano maqan doorasho laga ma hadli karo ma waxaan sharci ahayn SSC Khaatuum maqan doorasho laga ma hadli karo taas sharci ahayn waa sharci ummadda Soomaaliyeed dhamaantood meel joogta sayidkii wada taageersan sidii wada raaceen briq lama baahna iyo waxaan socon lama baahna xasanow ama mucaarad keen أما عد كلا كان أما واحد ربط كان ولا واحد تاس أهين أو صعنيس إني سنتين بدأ سيد كل شيء واحد أهين أو صعنيس ما جبته أذيك أنا في سيوني بكورنا والله ترى شغل في عدنا ذنقلني ترى شغل في عضة والله بذنقلني واحد هذين يسوون كقرنا نعيد كستان كقرنايس أو رفقته والله بالله تالله واحد شيء سحوك مثلا أديت بني سلامية سيشر قرية في دقنا تيسر الملف كلا قرسيو ما سنتي